السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daawadayaasha qiimaha badan oo kusoo dhawaada janaalka Masraxa Official aad ugu barateen casharada maadada chemistry ee fasalka afraad dugsiga sare daawada waxaan ka codsanaynaa haddii casharka la socotid inaad saartid subscribe sidoo kale like-ta sidoo kale aad kusoo xirtid asxaabtaada qaaliga oo deriska kula ah haddii ay jiraan arda form 4 ah oo deriskaaga ah haddii adiga aad iskuulka dhamaysay iyo haddii ay jiraan arda kugu fasala oo dhigata fasalka afraad dugsiga sare daawadaha qiimaha badan oo su'aasha aragna in isweydiina ayaa waxay tahay ugu horeyda horta waxa la yiraahdo alkaniska waxa loo yaqaanaa waxa la yiraahdo acetylene magaca kale loo yaqaano maxay acetylene waxa leen horta alkaneka marka laga hadlayo waxa jirta waxa la yiraahdo saddex dabar jirta saddex dabar ay jirto waxaan dhigi doonaa waa double bond triple bond iyo single bond qaybtay ugu jirta alkaniska waxay ku jirtaa iyada triple bond waxay ku jirtaa triple bond alkaniska waxa rabnaa inaan qeexno alkanisku maadaama uu yahay triple bond asaga muxuu noqon doonaa unsaturated wuxuu noqon doonaa waxa la yiraahdo unsaturated hydrocarbon wuxuu noqon doonaa waxa la yiraahdo unsaturated hydrocarbon alkanis refined waxa lagu qeexay waa unsaturated hydrocarbon waaye unsaturated hydrocarbon compounds waa isku dhis unsaturated oo aan unsaturated undergain containing waxa ku jira at least ugu yaraan one carbon triple bond macnaha wuxuu leeyahay waxa la yiraahdo triple bondigu waa like this triple bondiga ama maqlaysid waa kana triple bond saddex dabar uu leeyahay macnaha labada carbon atoms waxa u dhaxeeya triple bond tusaale ahaan oo kale waxa arkaysaa carbon like this between carbon atoms carbonada way badan karaan laakiin meeshan waxa ku jira waxa la yiraahdo triple bond so waa unsaturated carbon haday noqdaan arintu waxay cadeynaysaa in dabarku uu yahay laba noqon kara unsaturated alkene iyo alkane iyo aromatic soo raaca laakiin haddana waxaan taaganahay double bondiga maadaama uu ku jiro kuwii unsaturated ka ahay wuxuu noqonaa wax la yiraahdo unsaturated hydrocarbon marka daawade salaano kale carbon wuxuu la afar gacan u lahay salaano kale meeshaan oo kale laba carbon taala CH3 carbonkan CH3 intana single bond ku yaal carbonka afar gacan u lahay saddex gacan inta u maqan tahay complete way gacanta u maqan tahay gacan inta u maqan marka waxay u tahay marka ethane oo kale salaano kale waa C2H2 qaabkana molecular formula of ethane loo qoraa propane oo kale waatana waa saddex carbon salaano kale meesha markuu galo triple bond salaano kale carbonka CH2 ah laba gacan inta uga maqan tahay iyo gacantii single bondiga kan waxa ka maqan hal gacan inta macnaha laba gacan inta uga maqan meeshan waxa laga rabay CH3 laga rabay laba gacan isku maqan waxa waaye waxa isku darta marka carbonkan saddex gacan marka intan hal gacan afartiisa u dhameystiranta marka complete waa like this kan oo kala fiiri meeshan oo kale waxa laga rabay CH2 laga rabay hydrogentii labada gacan ku istay labada gacan ku maqan tahay double bondigan ku maqan tahay bi bondiga halkan ku jira ku maqan tahay bi bondigu waa labadan xabo ee hoose bi bondiga ku maqan tahay maadaama bi bond ku maqan tahay saddex gacan oo carbon hal gacan carbon afartiisa gacan waa complete oo buuxda tusaalahaan kale carbonkan meesha yaala gacan hydrogen oo ku haystaa saddexdiisa gacan oo complete tusaalahaan kale propane oo kale waatana molecular formuladeeda ina si fiican fahantaan jeclahay waxa jira kale waxa la yiraahdo bentane waa kana aan jeclayna fahantay waatana molecular formulada qaabka lagu soo saarana waan heli doonaa marka daawadaha qiimiga badan oo waxaan ku jirnaa wali alkanis ayaan ku jirnaa
حاليا alkaniska are also called magac waxaa loo yaqaana la yirahdo acetylene. Alkaniska waxaa jira magac kale oo lagu yeeri karo la yirahdo acetylene. Sababtuna waa maxay? Because maxaa yeelay the common name waa common name waa magac guud oo la wada yaqaano. The first member of the alkane is known as magacada ugu horeeya memberka ugu horeeya alkaneka la wada yaqaana waxaa loo yaqaana acetylene. Tusaalahan oo kale waxaa kamid ah ethane oo kale. Ethaneka oo kale waxaa acetylene ahaan ayaa lagu wacaa. Tusaalahan oo kale propyneki oo kale acetylene oo kale. Marka waxaa waaye waa first member of alkane. First member of alkane. daawadaha qiimaha badan oo alkaniska wuxuu leeyahay general formula qaacido guud. qaacidadiisa waa tan. marka hadii lagu weydiiyo general formula of alkane sheeg hadii lagu dhaho waa inaad sheegi kartaa general formula of alkane. qaacidadan ayuu leeyahay. waxaa leeyahay n inta waxay u taagan tahay the number of carbon atom. intaan waa waxa laga hadlayo. intaan maxay u taagan tahay? intaan waxay u taagan tahay number of carbon atom in the alkanes ayay u taagan tahay. waxaan rabnaa daawadaha qiimaha badan oo inaan ka hadalno waxa la yiraahdo nomenclature of alkanes. magacaabida alkaniska inaan si fiican u taabano. horta marka alkaniska la magacaabayo laba hab oo loo magacaabi karaa oo ah common system iyo waxa la yiraahdo IUPAC. labadaba oo loo magacaabi karaa. waxaan leenahay in this system nidaamkeena the carbon triple bond carbon triple bondiga oo saddex dabar oo meesha taala is named as waxaa loo magacaabaa qaab la yiraahdo acetylene oo magacaabayna. triple bondiga meesha yaala waxaan u magacaabi doonaa acetylene. therefore alkanes arrinta waxaa loo magacaabaa alkyl acetylene. waxaa loo magacaabi doonaa waxa la yiraahdo alkyl acetylene. alkyl acetylene wax kala ma dhihi doono. tusaale ahaan oo kale intaan marka la fiiriyo tusaale ahaan oo kale meesha hadda waxaa taala alkyl ayaa qaybtan oo kale hadda fiiri waa alkyl. sababta kinisa waxay tahay CH3 waa macna waa carbon saddex hydrogen ku leeyahay waa alkyl. intaana ku saarto Soomaan intaan ayadana maxaa u qaadanay? intaan waxaa loo qaadanaa waxa la yiraahdo acetylene. intaan waxaa loo qaadan doonaa waxa la yiraahdo alkyl loo qaadanaa. tusaale ahaan oo kale intaan waxaa loo qaadan doonaa acetylene loo qaadan doonaa. intaan maxaa loo qaadan doonaa acetylene. marka tusaale ahaan oo kale intaan hadda markii la yiraahdo magacaabo kan oo kale hadda wuxuu noqday acetylene noqday. soo ma aragtid? marka kan hadii intaan alkyl loo qaatay kan wuxuu noqday waa kana marka mithaal la dhahay acetylene la. acetylene maxaa loo qaatay? labadan carbon oo ethyl oo ah ethanekana loo qaatay acetylene. waa common system ahaan marka loo magacaabo. kanna waxaa loo qaatay alkyl group ahaan loo qaatay. kan waxaa loo qaatay alkyl ahaan. tusaale ahaan oo kale meeshan waxaa la dhahay marka la magacaabayo waxaa loo magacaabaa hab la yiraahdo alkyl acetylene. kan waxaa loo qaadan doonaa alkyl loo qaadanaa. kan waxaa loo qaadan doonaa alkyl. maadaama laba alkyl meeshan ku jirto waxaa la leeyahay kan mithaal oo yahay dhaya la soo qaadanaa dimethyl acetylene. intaan waxaa loo qaadanaa ayaga intaan maxaa loo qaadanaa acetylene loo qaatay. tusaale ahaan oo kale labadan oo isku xiranna waa mithaal iyo mithaal waa laba xabo soo maha waa tana meeshan ku yaalan ujeedaa waxaa waaye dimethyl acetylene. haddana waxaan rabnaa inaan ka hadalno daawade waxa la yiraahdo IUPAC system oo alkane ku leeyahay. in this system nidaamkani alkanes arrimid waa la magacaabaa the same way hab la mid ah as alkeniska qaabkii loo magacaabi jiray hab la mid ah ayaa loo magacaabaa with the following kuwaan soo socda exception iyadoo laga reebayo. tusaalahaan oo kale alkaniska qaabka loo magacaabayo waxay iska agdhow yihiin waxa la yiraahdo alkeniska. iskaga agdhowaadaan ma xuma laakiin waxaa jira waxyaabo laga soo reebayo oo alkinka oosan kala mid yahin waxa la yiraahdo alkaniska oo shuruuc ahaan oo uga duwan yahay. marka waxyaabo waxaa jira exception ah oo loo soo reebayo oo gaar ah waxa la yiraahdo alkaniska. tusaale ahaan oo kale
alkanka waxyaalo lagu yaqaan waxaa kamid ah parent chain silsilada ugu dheer of alkanka uu leeyahay is the waxaa waaye the longest continuous carbon carbon chain waa silsilad soconaysa taasoo ay ku jirto wax la yiraahdo triple bond macnaha silsilada ugu dheer ee alkanka uu leeyahay muhiimadu waxaa waaye waxaa ku jira wax la yiraahdo triple bond waa silsilada waa parent chain of alkan maxaa ku jira triple bond qodobka labaad wuxuu noqonayaa the parent name marka la rabo in la magacaabo silsilada of alkan has the ended waxaa hadaa laga raacsiinaa wine oo ah WINE tusaalahaan oo kale meeshaan waxaa taala CH3 haddii la yiraahdo meeshaan oo kale waxaa ujeedaa kaarboonka laba gacan u lahay kana laba gacan tusaalahaan oo kale meeshaan CH2 waaye midna waxaa waaye CH3 okay waxaan leenahay the parent name marka la magacaabayo silsilada ugu dheer macnaha wuxuu ku dhamaanaa wax la yiraahdo YNE waa silsilada ugu dheer parent chain waa parent chainka is counted waxaa laga soo xisaabinayaa starting from iyada laga soo bilaabay the end nearest meesha ugu dhow oo ugu dhow yahay triple bondiga laga soo bilaaba tusaalahaan oo kale waxaa laga tirinaa meesha triple bondiga uu ka dhow yahay alkinka waxaan ogeyn waxaan kasoo tiri jirnay meesha uu ka dhow yahay double bond alkinkana waxaan ka tiri jirnay meesha uu ka dhow yahay side chainka laakiin marka la joogo alkinka waxaa laga tirinaa meesha triple bondiga uu ka dhow yahay tusaale hadda kan oo kale waxaan ka tirinaynaa kow intuu ka dhow yahay kaarboonka labaad uu ku dhegan yahay 3 4 5 6 macnaha waxaa waaye 1 2 3 4 5 waaye marka maadaama 5 uu yahay kaarboonka labaadna ku dhegan yahay silsilada ugu dheer waa maxay horta waxaan leenahay 2 ayaan dhihi karaa 2 waxay ka dhigan tahay kaarboonka labaad oo triple bondiga ku dhegan yahay waxaan leeyahay silsilada ugu dheer waa pentane gadaal maxaa uga dari doonaa parent name silsilada ugu dheer gadaal maxaa ka raacsiin doonaa wax la yiraahdo YN hadda ujeedaa qodobkii waa kaasa waa kan haye qodobka hadda aan leeyahay triple bond ku jirana triple bond waa kana saxiix isla waafaqan sama midkii la dhahay YNE ugu dambeeyana waa kaasa the nearest xaga ka soo tirina marka qodobkii nixiraayo ahay nearest meesha ugu dhow aan kasoo tirina xagee waa halkaan aan kasoo tirina halkan maxaa ugu dhow triple bondiga ayaa ugu dhow daawadaha qiimaha badan oo isomerism of alkanes ayaa rabnaa in wax ka taabano isomerism of alkane waxaan hore usoo baranay isomerismkan waxaa waa same molecular formula laakiin structure ku kala duwanaa tusaale waxaan oo dhan hadda tusaale kale waa Z5 H8 waa pentane kind of like that waa H8 macnaha excellent tusaale ahaan oo kale meeshaan waxaa yaala triple bond ayaa yaala maadaama triple bond oo yaal silsilada ugu dheer waa maxay waa 1 2 3 4 5 xagan ka tirinaa meesha triple bond ku dhow 1 2 3 4 5 okay waxaan meesha yaala waa pentane kan meeshaan yaalana waa maxay isna waa pentane waxaan kan waa pentane
kaas isla fahansan sidoo kale waxaa haddana bentine ah midkan isagana waa maxay waa bentine kan waa bentine kana waa bentine marka daawad intaa kasoo tirinay haddii la yiraahdo hala magacaabo waxay noqonaya benta wankan waxay ka dhigan tahay wine waxaa macnaha kaarboonka koowaad ayaa waxaa ku dhigan triple bondiga gadaalna waxaa laga raacsiinaa wine ama sidoo kale waxaa dhihi kartaa one bentine waa dhihi kartaa marka structurekan qaabku u qoran yahay qaab kale oo ka duwan ma loo qori karaa waa kana tusaalahaan oo kale intaa waxaa looga dhigay zygen kaarboonadan tirsa adiga muhiimadda koowaad waxay tahay kaarboonada inaad tirsa kartid muhiimadda koowaad waa 1 2 3 4 hala magacaabo hadii la yiraahdo kan wuxuu noqonaa methyl noqonaa maadaama kan methyl uu noqday waxaa la dhihi doonaa 3 methyl carboxide methyl ku dhigan kaarboonka koowaad waxaa ku dhigan waxa la yiraahdo triple bond gadaalna butane laga raacsanaa silsiladu 4 laakiin halkaas markii laga fiiriyo naminka waa ka laakiin waxaa meeshan ka cad kaarboonadan korka tiri waa 1 2 3 4 5 midkan meeshan waxa yaala waa isla bentine laakiin waxaan ka fiirinaynaa structure-ka uu kala duwan yahay haddana molecular formulaha kan iyo kan waa same position isomerism wax la yiraahdo inaan sameynaan rabnaa position isomerism ka for example tusaale ahaan oo kale meeshan waxaa yaala kaarboon koowaad waxaa yaala triple bond ana saddex tabar taal saddex tabar meeshan taala xagee laga bilaabaa tirinta inta laga bilaabaa meeshii ku dhow laga bilaabo 1 2 3 4 okay maxaa lahayd 1 butane okay structure-ka qaabka u qoray waxa ma ka bedeli karaa yes meeshan ergan position waa maxay ergan positionka kaarboon koowaad ku dhigan triple bond sona waxaa la geenaa kaarboonka labaad la geenaa wuxuu noqon doonaa marka 2 butane marka hadda meeshan waxaa iga cad structure-kan inta ku qoran iyo structure inta ku qoran waa different oo kala duwan yihiin marka kaarboonka koowaad triple bond ku dhigan yahay marna kaarboonka labaad ku dhigan yahay marka micnihii isomerism ma meesha kaaga muuqda positionka in loo kala bedelo bas waxaan rabnaa general methods of preparation of alkenes waxaa la rabaa in diyaarin lagu sameeyo waxa la yiraahdo alkenes in diyaarin lagu sameeyo alkenes are prepared by waxaa laga soo diyaariyaa waxa la yiraahdo action of water with calcium carbide waxa la yiraahdo tusaalahaan kale in this process hanaankan oo la yiraahdo calcium carbide ku like this waa kana calcium carbide ka maqlaysid waa kana calcium carbide reactants wuxuu la falgalaa with water biyaha to produce wuxuuna soo saaraa wax la yiraahdo ethane soo saaraa ethane soo saaraa tusaale ahaan kale calcium carbide ka markuu la falgalo inta waxaa yaala water ayaa water kan waxaan u kala qaadi doonaa horta H iyo OH aan kala qaadayna horta okay OH kan wuxuu ku dhigi doonaa calcium tan ku dhigi doonaa la falgali doonaa maxaa meesha ka soo baxay calcium hydroxide ka soo baxay calcium hydroxide wuxuu ka timid tusaale ahaan oo kale meeshan aad calcium oo plus 2 ah waxay la falgashay plus OH oo negative marka productii ka dhashay ayaa noocaan noqday excellence macnaa labada hydrogen la kala qaaday C2 meeshan waxaa taalay laba hydrogentii iyo kaarboonka isku dhigay
doono maxay noqon doonaan ayagana isku dhigi doona kaarboonka iyo hydrogentan waa isqabsan doonaan maxaa ka dhasha marka waxa la yiraahdo ethane ka dhasha maxaa la diyaariyay marka waxa la yiraahdo ethane waxaa la diyaariyay ethane note waxaa ogsoonataa this process hanaankan is used waxaa loo isticmaalaa in preparing in lagu diyaariyo only kaliya ethane hanaankan waxaa loo isticmaali karaa kaliya in lagu diyaariyo ethane waxaan rabnaa inaan wax yar ka hadalno dehydrohalogenation of vicinal and geminal dihalide waxaa la yiraahdaa inaan ka hadalno erga dehydro waa in la saaro biyaha meesha ku jira iyo halogenation in la saaro waa very important weliba vicinal waa laba carbon oo deris ah markii halogenation ay haystaan geminal waxaa waaye waa same carbon atom hal carbon atom markay ku dhigan yihiin halogenation markay yihiin oo halogen oo ku dhigan yahay halogen group marka this process hanaankan undergoes wuxuu marayaa 2 steps laba tilaabo ayaan qaadaynaa labada tilaabo aan qaadayno waxay noqon doontaa step 1 alcoholic ama potassium hydroxide ka waxaa loo isticmaalaa si soo loo isticmaalaa to catalyst in uu dedejiyo falgalkii to produce waxaa la rabaa in la soo saaro hala alkene horta hala alkene soo saari doonaa waxaan kaloo isticmaali doonaa step 2 wax la yiraahdo sodamide waxaan isticmaali doonaa catalyst ahaan markaan soo isticmaalana waxaa soo bixi doona wax la yiraahdo halo alkene waxaan dhihi doonaa marka meeshaan waxaan rabnaa inaan si fiican uga saarno horta hal step aan maraynaa stepkaana marsiinaynaa ugu horeeya stepka ugu horeeya qaabkee u marsiinaynaa waxaan ka saaraynaa k iyo bromine oo isqabsiinaynaa k bromine tusaalahaan oo kale OH kan iyo hal hydrogen meesha ka saar meesha laga saar maxaa ka dhashay meeshii marka waxaa ka dhashay catalyst waxaa la isticmaalay potassium hydroxide la isticmaalay maadaama potassium hydroxide la isticmaalay CH3 waa la soo qaatay CH3 markii la soo qaatay waxaa la soo qaatay waxa la yiraahdo hal xabaan saaro sama CH bromine maadaama aan saarnay meesha harta ku dhigi kartaa CH aad soo qaadanaysaa CH markaa soo qaadatay double bond meeshaan ka dhigay markii double bond laga dhigo macnaha double bond markii laga dhigo CH Br sar Br tan intana waa ku dhigi kartaa intana waa ku dhigi kartaa macnaha intana waa ku dhigi kartaa intana ku dhigi kartaa macnaha maaha macnaha inta CH2 ay ahayd gacanta ku maqan double bondigaana ku maqanta kan laakiin waxaa waaye waa CH3 laga rabay CH2 gacanta asaga ka maqan halkaan marka maadaama CH2 oo yahay CH2 oo ahaa lahay CH2 ma noqon gacan CH oo noqday gacanta oo CH2 ku noqon lahay wuxuu ku haystaa bromine ayuu ku qabsaday okay waxaan rabnaa in haddana aan isticmaalo wax la yiraahdo sodamide waxaan isticmaali doonaa processka la yiraahdo sodamide aan isticmaalaa catalyst waxaa meesha ka bixi doona halogenation laga saari doonaa remove haddana waxaa soo bixi doona wax la yiraahdo bromide ayaa soo baxa hadaytu waxaan kasoo hadalnay laba carbon oo dirisa tusaalahaan kale Br-ta carbonkan ku dhagan hadda waxaan rabnaa wax la yiraahdo geminal halkan carbon intana Br ku dhagan intana Br ku dhagan haye isla bixinaynaa Br waxaan isku dhijinaynaa K horta ka saaraynaa haye waxaan kaloo sameyn doonaa meeshaan hal hydrogen laga saaraa hal hydrogen iyo OH kan ayaa la saari doonaa hal hydrogen maxaa la saaraa hal hydrogen inta laga saaraa hal hydrogen inta laga saaraa okay marka waxa soo baxay CH3 inta u jeedaa soma markaan hal bromine aan saaray bromine iyo bromine meesha wax ka saar Soomaaliya maxaa soo baxay hal bromine maxaa horta la soo saaraa hala alkene la soo saaro haddana waxaa
CH2 ahaa soma double bond meesha ka awar meeshii ahayd double bond ka awar meeshan waxay noqon doontaa CH3 sababta waxaa meeshan waxaa laga rabay CH laga rabay hydrogenka aan tuurnay ama ka maqan meesha OH tan OH kan aan meesha ka saarnay iyo meesha CH laga rabay hydrogenkas waa isla bixin marka CH3 la dhahay marka haddana waxaan rabnaa inaan ka saarno bromintan marka bromintan saarayno waxaan isticmaalaynaa sodamine marka isticmaalo meesha maxaa ka saarno biyihii wax allaale wixii biyaha meesha waa ka saarno kow sidoo kale waxaan ka saarnay wax la yiraahdo halogen group markii tusaale ahaan kale halkan xaba aan saarnay waxaa noo soo baxay halo alkene noo soo baxay haddana waxaan rabnaa inaan baabi'ino bromintan rabno inaan meesha ka saarno waa two step waliba qaabkan waxaa la dhahaa geminal la dhahaa qaabkan hadda waxaan saarnay waxa geminal sodamine isticmaalay CH3 waa kana maxay soo baxay butane waxaan leenahay geminal dihalide is a dihalide way that the two halogen atoms are bonded oo laba halogen atom ku dabaraysan to the same carbon atom laba carbon atom so halkan carbon inta muxuu ku leeyahay wax la yiraahdo same carbon atom waxa la yiraahdo two halogen kan hal carbon atom ku dhagan yihiin arinta noocaas maxaa u naqaanaa marka arinta noocan markay u dhacdo waxaan leenahay geminal dihalide waxaa jira wax la yiraahdo dehalogenation in meesha laga saaro halogenationka of tetrahalide afarta xabaa tusaale ahaan kale meesha ayaa laga saarayaa tusaale ahaan kale labadan bromine waa la saarayaa so marka tuugan meesha yaala tuugan wuxuu ku imaan doonaa maadaama loo bromine inta taala intana loo bromine taala saas ku yimid tuugan meesha yaala waxaan la isticmaalaa zinc odesty ayaa la isticmaalaa zinc odesty ayaa la isticmaalaa marka intaan laga saaro maxaa imaan doona maxaa ka dhalan doona waxaa la rabaa in la diyaariyo alkan intaan markii laga saaro oo zinc odesty ayaa la isticmaalo catalyst aan loo qaatay intaan markii laga saaro waxaa ka dhalanaya wax la yiraahdo acetylene waatana maxaa la diyaariyay ethane marka maxaa meesha laga saaray afar bromine meesha laga saaray iyadoo la isticmaalayo catalyst la yiraahdo zinc odesty alkaniska waxaa leenahay physical properties of alkanis haddii lagu weydiiyo physical property of alkanis wax ka sheeg waxaad dhigi doontaa alkanisku waa non polar compound alkaniska waxaa lagu yaqaan sidoo kale waxaa kamid ah insoluble in water kuma milmaan biyaha kuma milmaan waxaan kaloo dhigi doonaa the melting and boiling point increases waxaa badanaya waxaa la yiraahdaa melting pointiga barta dhalaalka iyo boiling pointigu increases way bataan with increase markii uu bato molecular mass markastoo molecular mass ka wato molar masska melting point iyo boiling point way badanayaan or the number of carbon atom they are less dense in water cufka biyuhu waa yar yihiin and they are insoluble in water biyaha kuma milmi karaan alkanisku waxay leeyihiin have low melting point and boiling point waa low waxay leeyihiin melting pointigoodana waa hooseeyaa boiling pointigoodana waa hooseeyaa laakiin haddii uu badanayo wuxuu ku xiran yahay waxa la yiraahdo molecular mass waxaan dhihi doonaa wax la yiraahdo acetylene waxaa loo isticmaalaa wax la yiraahdo oxyacetylene flame taasoo loo isticmaalo for cutting wax lagu jiro and welding metals in lagu alxamo biraha acetylene sidoo kale waxaa loo isticmaalaa in manufacture in laga sameeyo maadada la yiraahdo western in laga sameeyo alkaniska sidoo kale ariso waxaa loo isticmaalaa of information in laga sameeyo aldehyde in laga sameeyo sidoo kale ketones in laga sameeyo ayaa alkanis sameeyaan intaas baa loo isticmaali karaa sidoo kale alkaniska are also used sidoo kale waxaa la isticmaalaa for manufacturing in laga soo saaro waxyaabaha la yiraahdo plasticska iyo waxyaabaha loo yaqaano synthetic rubber